حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. waxaa laga wariyey sahl ibni sacdin ilaahay raalliha ka noqdee inuu yidhi waxa uu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi waaalihi wasalam: yaa ii damaanad qaadaya waa in uu xifdiyo oo xaaraanta ka ilaaliyo waxa u dhaxeeya labada lafood ee afkiisa ama qalkiisa iyo waxa u dhaxeeya labadiisa lugood oo aan u damaanad qaadaa janno. waxaa wariyey bukhaari. haddaba maxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidka? kow, khatarta carabka iyo farjigu ay u leeyihiin qofka. labo, sida sharcigu inoogu tirtirsiiyey inaan xifdinno oo ilaalinno labadaasba. saddex, qofkii alle dartii u xifdiya labadoodaas wuxuu abaalmarin ugu helayaa janno. afar, waxaa carabka laga xifdiyaa waa wax kasta oo carabka loo adeegsado sida hadalka, cuntada, cabbitaanka iyo carab ku ishaaridda ama ku tilmaamidda iyo waxa la midka ah. shan, damaanadda laga rabo qofka waxaa ka mid ah in uu guto wixii xaq loogu leeyahay ee ku hadlidda waxa fiican ah iyo ka aamusidda waxa aan fiicnayn. lix, sidoo kale damaanadda farjiga waxaa ka mid ah in uu u adeegsado wixii xalaal ah oo keliya kana fogaado wixii xaaraan ah. toddobo, xifdinta farjiga waxaa soo hoosgelaya wax kasta oo ka qayb qaata ama sahla gudashada shahwada sida aragtida, daawashada amaba taabashada waxa la reebay, qaababka kala duwan ee shahwadaas loo guto iyo wixii la mida. siddeed, alle aad ayuu u weyneeyey arrinta labadan xubnood la xidhiirta. rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalama isna sidoo kale. tusaale ahaan qur'aanku wuxuu caddeeyey in hadalba uusan qofka ka soo bixin kaasoo aanay goobjoog malaa'igtu ka ahayn oo aan la qorayn laguna markhaati kici doonin. maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. nebiguna sala allahu calayhi waaalihi wasalama waxa uu sheegay in qofku hal kelimo oo uu iska yidhi uu sababteed jahannamo gunteeda ugu sii shalwanayo in ka fog inta bari iyo galbeed isu jiraan, iyo in natiijada shaqada carabkoodu ay tahay sababta dadka naarta weji loogu tuuri doono. sagaal, sinada iyana wuxuu ku tilmaamay waa alle in ay tahay faaxisho jidkeedu aad u xun yahay oo la iska rabo in aan loo dhowaan, iska daa in la sameeye. toban, labadan xubnoodii waa laba xubnood oo dhaawaca ay qofka u geystaani aad u wen yahay haddii uusan qofku ka adkaan. 11 xadiidku wuxuu tusayaa in adduunyada balaayatan ugu badani ay qofka uga timaado carabkiisa iyo farjigiisa. qofkii iska ilaaliya sharkoodana uu yahay qof iska badbaadiyey sharkii ugu weynaa. waxaa saas yidhi ibnu battaal raximahullah. 12 carabka oo la iska furo oo loo fasaxo inuu isaga hadlo waxaan rabbi taacadii ahayn waa sabab ka mid ah sababaha naarta lagu galo. 13 in waxaas la iska ilaaliyaana waxay sabab qofka ugu noqon kartaa jannada galideeda. 14 qofku sharka carabkiisa wuu ka badbaadayaa haddii uusan khayr ma ah ee wax kale uu isticmaalin. 15 wuxuu yidhi xaatim al asam:
haddii wariye kuugu soo fadhiisan lahaa inuu wax kaa qoro inta ku waraysto waad dooran lahayd oo ka fakari lahayd hadalka aad ku odhanayso laakiin hadalkaaga alle loo bandhigayo dankama lihid laakiin hadalkaaga oo alle loo bandhigayo dankama lihid 16 fasahaadka iyo jirooyinka ka dhasha marka farjiga sida xun loo isticmaalo ee ama sinada khaniisnimada iyo wixii la mid ah ka dhasha cidna kama qarsoona 17 fasahaadinta taranka nasabka akhlaaqda horumarka ummadda iyo wixii la mid ah waxaa u sii dheer jirooyinka aadka u xunxun sida aidiska oo ay sababaan haddana qarsadaan oo sidaa ku faafiyaan 18 xisaab adag ayaa u dambaysa waxaas oo dhanna waa la qoray oo alle hortii ayaa looga xisaabinaya mar kastase towbaddu waa furan tahay oo rabbi waa jecel yahay qofka xumaanta ka soo noqda oo wanaaga u soo noqda oo wanaag ku bedela 19 waxaa muhiim ah in nuurka xadiidkan lagu ifiyo sababaha ku kiciya in dhallinyaradu maanta daba ordaan shahwada farjiga oo ay ugu horrayso in la asbaabtii si xalaal ah ay ugu gudan lahaayeen shahwadaas lana sahlay asbaabtii ay si xaaraan ah ugu gudan lahaayeen oo ay teknolojigu ugu horrayso islaamku siyaabo badan ayuu ku xalliyey in guurka la badiyo lana yareeyo asbaabaha akhlaaq xumada keeni kara laakiin inta badan dhagaha ayaa laga furaystay 20 waxyaalaha u baahan in la iftiimiyo ayaa ah in laga yaabo in wiilka ama gabadhu ay naftooda naartaas uga raali noqdaan maxaa yeelay ma haystaan wax xaflado waaweyn amaba kharashaad aad u sarreeya iyo wixii la mid ah lagu dhigo ama lagu bixiyo ma wax la isbarbardhigaa waa maxayse dowrka bulshadu arrintaas ku leedahay waa maxay dowrka ay waalidku ku leeyihiin qofkii awooda in uu qofka uu mas'uulka ka yahay u xifdiyo waxa lugihiisa u dhaxeeya ee aan yeeline ka doorbida in uu dhaldhalaal adduunyo la sugaa ma ku yeelanayaa dembi su'aalaha arrintan la xidhiira waa badan yihiin lagamana bixi karo waxayse dhammaan ina tusayaan in ay tahay arrin bulshada u wada taal allana subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo wiilasha iyo gabdhaha waalidka iyo mas-uuliyiinta jabiya gidaarka shayddaanku ku wareegsaday arrintan oo fududeeyey in ay si xalaal ah shahawaadkooda dhallinyaradu ku gutaan 21 qaabkee qofku ku xifdiyi karaa labadan xubnood sida ugu fiicani waa alle kaalmaysigiisa ku fakarka in alle la jiro oo eegayo iyo ixtiraamka uu ka mudan yahay waxa wanaag ah ee uu ka helayo haddii uu amarka alle qaato iyo waxa ka dhalan kara ee ciqaabka adag ah haddii uu amarka alle ku tunto طبعا waa in uu ka fogaado waxyaalaha ku saacidaya in uu carabkiisa ama farjigiisa si xun u isticmaalo lana yimaado waxa xalaasha ah ee u bedeli kara waxa xun sida xusida alle xaadiridda meelaha fiican iyo ka fogaanshaha meelaha xun quraan akhriska iyo wixii la mid ah dhanka farjiga waa in uu guursadaa iskana ilaaliyaa waxyaalaha ka horeeya xaaraanta ama soonka badsadaa haddii uu u arko in xakamayntiisu ay culus tahay 22 rabbi waa ii xifdiyey carabka iyo farjiga marka jannaan galaya maya sidaasi iyadoo sax ah haddana waa in uu qofku dadaalka sii labanlaabaa oo badsadaa meelaha uu jannada ka soo geli karo iyo camalka wanaagsan kana fogaadaa xumaanta oo dhan rabbi hayna waafajiyo in aynu ka adkaanno xubnaheenna in aynu diyaarsanno jannadeenna iyo in aynu raalli gelinno rabbiga ina abuurtay inta aynu xadiidka xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa amaana allah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين